doontaan hawlo badan baa sanadkii inoo yaalo la ka rabaa inuu hawl galino sanadkan waxaynu tijaabinay shaqaalaha sida loo qoro dadku gobolada inay ka yimaadaan oo imtixaan hargeysa u galaan waxay noqotay cadaalad darro oo ay soo gaari karaan qaar baan ay herin qaar baan iman karin ama hargeysa aan joogi karinba kasta hatee waxaynu tijaabinay in gobolada la geeyo wixii shaqo la helay lixda gobol baynu geynay 300 oo qof baa shaqadii dadkii markii la baaray shaqaalihii dadkii maqnaadeen dawladda ka maqnaaday intii soo hadhay kun macallin waa la shaqaaleeyay ama waa loo saxay iyagoo mushaarada hore u qaadan jirin 300 gobolada imka laga soo qoray oo u badan wada jaamacadda ardayda ka baxday oo siinay marka goboladii B iyo C da ahaa waxaan jecelahay waxa ay kharash ku baxay inuu jaamacadda ku aynu shaqada qorraa aynu geyno oo dhaqaalihi xagga ugu bedelo waxaynu nidhi markaa hadee jeer dee dhibaata ayna haysato hablaheena shaqadayna lama galaan cadaalad darre marmo tirsan hablihii inana waxaynu hablo mee gurigood iska joogaan rag waa yidhaahdaa kolkaa shaqaalihii imika aynu qaadno waxaynu nidhi boqolkiiba 30 aynu hablo ka dhigno 90 bay noqdeen iyo 210 talabaad qaado charge baa ka soo baxay haddana halkaana dood baa ka timid marka inamada shaqadii la galay dhowr kun oo qof soo codseen inan baa wuxuu keenay markskii 80 habli markii gaar looga qaaday waxa laga inuu marks soo keento oo ku soo baxdo ragii waa dacwooday oo soo dacwooday cadaalad ma dastuurku wuxuu leeyahay muwaadiniintu si same ba shaqada u dooranaya ya sharci waa marka waay inay habli gaar iyaga imtixaan gaar laga qaado ka iyaga ka yar su'aashaas jawaab inuu ka bahantay habli ma loo ahday soo laga ahday iyagana waxay wixii xagga wada qaatay su'aashaas waxa baad research laakiin mid baynu eegaynaa waa dhab hablo imtixaanka nimada lama tartami karaan soo badan oo inanku marks kan uu keenay iyo dadaalkan uu keenay kala bar inan taale ka soo qaad adiga walaasha isku class wada shaqeeya iyadu time-keeda inta badan adiga ku shaqeysa marka class ka soo raacdaan ee guriga la soo wada galo inantu isma taagtay cunta ku saysaa maalintii quraacad ayuu ku soo irma cuntid qolkaaga ay nadiifisaa dharkaaga ay ku kaawadaysaa hawsho dhan hooyad bay la qabataa carruurta kale korisaa marka time-kii ay wax baran lahayd ama ay nasan lahayd waqtigeeda waxay ku bixisaa juhdiga family iyo adiga waa shaqo aan loo ogeyn adigu inta ama wax akhrisaa ama library tag ama internet wax kala soo bax free time baa haysta marka library imtixaan baa la galay iyadoo waqti ay diyaar garoodaan helin baa laga yaabaa laakiin adigu waqti wada haysta marka dee marksna aynu ku riixayno barb bay ku leedahay xaq badan cadaalad markay wax lagu celiyo hadii labadeenu waa inuu free noqono dee guriga naga baabay qoyska naga baabay marka habluhu marka leeyahay kooshaha loo xiro ama imtixaanka gaar ha loo eego ma ha way liitaaniyo way jiricsan yihiin oo way ka maskax liitaanay waxa way time koodii iyo energy-goodu waa kan adiga kugu jira isku dhaafayso dadkati marka saadirtadii loo soo qaado ayaas hatta shaqada marka loo shaqeynayo inta dhiijiga ah waqtigan aad wada shaqeysay iyo firaaqadan haysa in laga ma hayso aroortiina caruur iyo reer ka tabaday soo hagaajisa marka noqotana intii leeg baa suuyaysa oo time badan bay leedahay haddana 8 saacadood qaranka dee la oran maayo hooyatay ka dhaaf haddii aan jiro duruufaha gaarka ah umusha iyo xanuunkii waqtigeeda marka inuu labadii tixgelinayna waa inuu hablina soo qaadnaa oo aynu helaan dhakhtarad islaama oo Soomaaliyada oo hooyo wanaagsana oo sodoh wanaagsana oo dumaasho wanaagsana oo haddana doctorada oo haddana agaasimada oo haddana professorada oo hela wana laba mid alwaan marka inamada badan imka ku dacwoonaya waxa lagu gudbayo waxa lagu xadgudbayaa dastuurkii iyo sinaantii oo quotation kuwa qeyr sharci ma qeyr sharci way time kaaga intii baday xagga ku jirta waxbay ku leedahay rag awoodan u leeyahay la cararayada barle hadana raxla simana waxa naga baabaaya sida Yurub ka noqonayna oo runtii ay dayici natural ka iloodo waanu taano tixgelinaa